where a new law to limit under 16-year-olds. Where halkaasiyo waa Australia new law. 6-Minute English from bbclearningenglish.com. In this program, we're discussing the positives and negatives. In this program, we are discussing the negatives and positives of social media. barnaamijkan waxaanu kaga hadlaynaa qaybtiisa wanaagsan iyo qaybtiisa xun social media, positivekiisa iyo negativekiisa ayaynu ka hadlaynaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. soo dhawaada asxaabta ku xidhan youtube-keenan caalami official. asxaabta maanta su-aal ayaan idin weydiinayaa taasi oo ku socota shakhsi kasta oo ku xidhan youtube-kan. su-aashaas waxay tahay muuqaalada noocani oo kala ahi miyay ku cajabiyeen? hadday jawaabtaadu tahay haa, waan soo badinaya commentiga haa igula wadaag. haddii ay tahay mayana maya igula wadaag. waxaan ka dhigayaa qaybtii filmaanta soo badinaya. su-aashaas waa su-aal adiga ku dul saaran. aan kusoo noqono muuqaalkeena. In the lives of young people. In the lives of young people, ee nolosha dadka yaryar. social media qaybtiisa wanaagsan iyo qaybtiisa xun ayaynu eegaynaa uu ku leeyahay ama soo ku hayo dadka aadka u yaryar. And this is a really trending topic at the moment. And this is a really trendy topic at the moment. kanina run ahaantii waa mowduuc hadda ah mid socdo oo la hadal hayo waqtigan la joogo. erey cusub waxaa ku jira trendy ama trendy. trendy waxaa laga wadaa shayga maalimaha suuqa haysta ee social mediaha platformadiisa amase tviyada qabsada ee caanka ah ee wax loo yaqaano waxaasi waa trendy buu noqday. Because of what's happening in Australia. ay sababtu tahay what is happening in Australia. ay sababtu tahay waxa ka dhacaya hadda Australia. waxay noo sheegi doontaa Australia waxa ka dhacaya hadda. Where a new law to limit under 16-year-olds. where halkaasiyo waa Australia new law xeerka cusub to limit uu ka xadidaya mase ka joojinayo maxay under 16 years old caruurta ka yaryar 16 jirka wixii 16 jir ka yaryar uu ka xanibaya mase uu ka joojinaya xeerkan cusub maxay. Access to social media is being debated. Access to social media, helitaanka social mediaha. access waa helitaanka, waa shay helitaankiisa. accessibility of water here in Somalia nowadays feels hard. ayaad odhan kartaa helitaanka biyuhu halkan Soomaaliya way adkaayeen beryahan. marka ereyga access yacni waa helitaankii shay. waayahay new law xeerkii cusbaan xagga hore kusoo aragnaynaa keliya wuxuu limit ku sameeyaa mesuu ka xadiday caruurta 16 jir ka yar inay helitaanka social media ay helayaan uu joojiyeyba gebi ahaan. is being debated ayaa laga doodayaa oo laga hadlayaa right now. hadday sheegayaan mowduucaas ayaa muxuu yahay. xagga hore waxaan kusoo aragnay trendy ah. is being debated ayaa hadda laga doodayaa. Neil, tell me one good thing and one bad thing about having social media in your life. su-aashan waxay weydiisay gabadhii Neil oo ah ninka la hadlaya. waxayna ku tiri Neil tell me ii sheeg one good thing and one bad thing about having social media in your life. waxaad ii sheegtaa way ku tiri Neil hal shay oo wanaagsan iyo hal shay oo xun oo social mediahu ku hayo noloshaada ayay weydiisay Neil. waxaan isleeyaynaa Neil wuxuu idhaahdo. Well, one good thing is it means I can see what friends are doing who live far away. Neil wuxuu ku jawaabay markan one good thing shayga keliya wanaagsan ee social media uu siin karaya ama ka heli karaya waxa weeye I can see waxaan arki karayaa what friends are doing who live far away. waxay sameynayaan asxaabtu kuwa ku nool meel iga fog ee jooga waddan kale oo kale waxyaabaha qabanayaan ay sameynayaan social media waan ka arki karaa. taas ayaa ah maxay
positive sidekii bal aan isla eegno negativekana And one bad thing is it's really addictive and a massive waste of time. one bad thing shayga xun qaybtiisa negativekayna waxa weeye buu yidhi it really run ahaantii addictive waa wax aad qabatimaysa buu leeyahay waxaan iska daynaya inaad isticmaasho mar walba addictive waa qabatin waa waxaad qabatimayso and massive waste of time iyo waqti lumin aad u weyn weeye social mediahu asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu barta waxaa ku ekaaday qaybteennii hore muuqaalkan